So where does your relationship with him stand today? waxaan ku weydiinaa goorma ayay bilaabatay xiriirkiina labadiina waxay bilaabatay waqti hore aad baan u jeclaa ninkaasi sababtoo ah anigoo yar ayuu jecel igu beeray oo jecel waxba ka aqoon daacad baan ahaa kadib asigaa waxaan dareemay muxuu kuu qiyaamay waxaan dareemay inuu naago badan la socdo sidaas darteed aniga aad baan uga xumaaday markaan su-aal weydiiyey igama jawaabayo kadibna hadalkiisa oo iga yareystay ma aqaano maxaan ku sameeyey oo maxaa ku samaysa adiga runta sheeg waxaan arkaa markasta inuu sigaar iska caabayo ila hadlayn waqti siinaynin midda kale sidii aan ku aqaano maaha isla weynuu bilaabay oo adiga baa la cabi jirin sigaarkii maxaa ku dhacay maya aniga lama cabi jirin marmarkaana cabi jiray mana u badnayn laakiin lacag u helay wuu isla weynaaday iyo ninkii aad taqaanay maaha isbedelay shiishaduu cabaa dib jir weyn u noqday aabihii wasaciilka u qabo haddaa og tahay waa dili laha shiishada fanaaniintoo dhan way cabaane cadaan laakiin aniga ma cabo ninkaasna hadda haddaan qabto ballan waa 5 xabad afku gelina. Same way. We were very young and very spontaneous. Like we ran free. We ran wild. We were falling in love and going at a really rapid pace. That we forgot about ourselves and as individuals. We forgot about our personal discipline. We needed something to completely shut that off and show us what we were missing, what we were taking for granted. And if we really care about each other, we care about each other's happiness. So it's not even about us being together. I truly love him. So the main thing for me is that he is at peace. You know, I'm not at peace if he's a little unhappy or he's still lonely or, you know, that's I care. Like I'm, you know, it actually matters that he finds that peace.